munaasabadda sanad guuradii lixaad ee aasaaska shirkadda korontada Beko ayaa waxaa ka hadlay Cabdinuur Cali Xuseen oo ah madaxa maaliyadda kaasoo ka warbixiyay qiimo dhimistii joogtada ahayd ee shirkaddu u sameysay macaamiisheeda tan iyo markii la aasaasay. Waxaan wada ognahay in qiimaha korontada magaalada Muqdisho uu ahaa la gadi jiray 1.3 iyo 1.2 intii aan la sameyn shirkadda korontada Beko ka hor 2014 markii la abuuray ama la aasaasay shirkadda korontada Beko nasiib wanaag isla markiiba waxay qiimaha ka dhigtay $1 sanadkii 2015 mar kale ayay Beko qiimihii jabisay waxayna ka dhigtay 79 senti 2016 mar kale ayay Beko waxay sameysay qiimo dhimistii saddexaad waxayna ka dhigtay 65 senti iyadoo dadka loo daneynayo oo laga fakarayo kor u kaca dhaqaalaha dalka mar kale ama mar afraad Beko 2017 waxay qiimaha mar kale ka dhigtay 55 senti markaas loo fiirsho dhaqaale ahaan 55 senti wali qaali bay ahayd laakiin nasiib wanaag mar shanaad ayay Beko iyadoo fiirinaysa horumarka dalka iyo in ay dalka ku soo kordhayaan warshado yar yar iyo isticmaal koronto aad u badan waxay qiimaha korontada ka dhigtay meesha ugu sareysa 48 senti sanadkan 2020 waxay Beko mar kale sameysay qiimo dhimistii lixaad taas oo ay qiimaha uga dhigtay 0.36 ama 36 senti taas oo noqon karta qiimo la jaan qaadi kara qiimayaasha korontada caalamka la gado meelo badan oo kamid ah sidoo kale waxa xusid mudan in meelaha waaweyn uusan ahayn 36 senti laakiin ay leeyihiin categories ay ku gaari karaan ilaa iyo 25 senti waxaan dhihi karnaa dalka iyo horumarku sameynayo Beko waxay ka qayb qaadatay in dhinaca tamarta in dalku uu gaaro isku filnaan iyo in uu helo qiimo jaban oo qof kasta u baahda inuu isticmaalo qalab koronto ama soo kordhiyo warshado uu si fudud ku heli karo koronto aan 4 saac ka tagaynin qiimaheeduna jaban yahay waxaan rabaa inaan hal mar dib ugu noqdo waxaan xasuustaa xilligii Beko la bilaabay waxaa jiray shirkad badan oo ku soo biiriyay suuqa oo rabay inay isticmaalaan koronto badan ama keenayay projectiyo u baahan qalab koronto aad u badan su'aasha koowaad waxay ahayd war ma heli karaa koronto 4 saac ugu filan kamaysan fikri jirin qiimaha laakiin maanta waxaan u haynaa korontadii oo ku filan tayo leh iyo qiimihii oo meesha iyadoo mar kasta laga fakarayo kor u kaca dhaqaalaha dalka iyadoo laga fakarayo in dalka ay ku soo badanayaan warshado waaweyn iyadoo laga fakarayo macaamiisha iyo in ay helaan qiimo la mid ah qiimayaasha korontada ugu hooseeya caalamka laga isticmaalo shirkadda korontada Beko waxay ku dadaali doontaa insha Allah taala in mar walba ay isku daydo inay kor u qaado tiknoolajiyada ay isticmaalayso taasoo dhalin karta in qiimaha korontada markasta la sii jabiyo waxaan rajaynaynaa insha Allah taala mar kasta oo shirkaddu ay horumar gaarto oo ay hore u sii socoto in ay qiimaha sii jabin doonto waxaan noo balanayaa insha Allah taala in qiimaha halka aan joogno inaan hoos ka sii aadi doono hadii Ilaahay yiraahdo mar kasta oo aan horumar sameeyno ama mashaariic weyn aan fulin insha Allah taala